shirkeena jiraayad golaha hogaaminta habargidir oo maanta soo gudbinaya gudoomiyahoodu waa dhacdooyinkan maalin walba dhacaya ee dhibaha jira in wax laga yiraahdo mudan in wax laga yiraahdo daawadeedana la tilmaamo waxa dhacaya waxa daawada u ah wixii lagu heshiiyey 27 May oo golaha wada tashigu qaranka uu go'aan ku gaaray oo hogaaminaya ra'iisul wasaaraha iyo dawlad goboleedyadu oo ahaa qaabka doorashada iyo habraaceedu u dhacayo in wadada ayada lagu socdo oo qaabka ay u dejiyeen iyo habraaceedaba la raaco cidii ka hortimaada barnaamijka doorashada sida u dhacayso waxaan u aragnaa inaysan raalli ka ahayn in wadanka nabadi ka dhalato oo doorasho la gaaro way doorasho la gaaray waxay dhalaysaa waan naqaanayo waxay dhalaysaa in golihii baarlamaanka la doorto golihii baarlamaankuna ama xildhibaan shacabkuna xildhibaanadii ay doortaan madaxweynuhuna ra'iisul wasaare doorto dawlad halka ka soo bax yani xilligan hadda jira dawladii bedeli lahayd cidii calaf u galaa soo noqotay laakiin in barnaamijda ay wax banaan yihiin in laga gudbo oo dawlad la dhiso bay tahay in doorasho la aado marka cidii hor istaagani taasay diidantahay anaguna taa ma taageerayno waxaan u arkaynaa inay wada yaal yihiin qodobkayga labaad waxa weeyaan heshiiskii gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyo ku-xigeenkii ra'iisul wasaaraha Mahad Guule ay wada gaareen in ayada taas lagu heshiiyay la tixgeliyo waxaan aad uga mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha in uu cadeeyay in doorashadaasi si dhaba oo daahfuran ay u dhacayso hadii ay yiraahdo ayana rabnaa inay qaabka ayada loo la abaarta la qaato oo aan la carqaladeyn lana gacmayn heshiiska asaga ah doorashada way bilaabatay aqalka sare aan aad uga mahad celinayaa dadkii ku dhiiraday inay bilaabaan oo madaxweynaha ama dawlad goboleedka Jubbaland ay bilowgii lahayd waxaan rabaa inaan si gaar ah barnaamijka Hirshabeelle madaxweyne Gudlaawe oo abaaray daaha furnaa xariga furanta ahaa cid alla cidii soo musharaxo timid u sii daayay waxay taa muujinaysaa in qof walba muwaadin uu istaagi karo asagoon cabsi ka qabin in dad gaar ah ay u xirnaato taasna waan tixgelinaynaa amaanta ayada ana waan soo jeedinaynaa waxaan kaloo rabaa inaan ku biiriyo barnaamijkan aad u socda bariyahan dambe oo ah ikraam tahliil waa tusaale waxay u tahay muwaadin kasta oo dhib laga galo oo ka tirsanaya inuu madax dawladeed ama siyaasiyiin magac leh ay dhibka ka galeen inuu xaq u leeyahay inuu dacwo furto maxkamadda geeyo xaqiisa cidda uu ku tabayo haddii lagu helo eedaas inay maxkamaddu sharci tallaabo ka qaado haddii lagu waayana ay xorriyadiisa siiso laakiin muwaadin walba inuu xaq u leeyahay waxa uu tabayo ama cid ku tabayo inuu sheegan karo mas'uul kasta ha noqdo oo sharcigu ka sareeyo qof walba waa tixgelin gaara waana ku bogaadinayaa ra'iisul wasaaruhu meesha uu iska taagay arinta ayada ah waxa jira waa dhamaatay maxaa la yiraahdaa xilkii dastuuriga ahaa ama madaxweynaha ama baarlamaanka waxa kaliya hadda hoggaanka haya waa xilgaarsiinta ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada sida dastuurka 103 uu cadeynayo marka waxaan soo jeedinaynaa wanaag bay tahay in doorasho la aado in cidii calaf u galaahay la soo doorto ay waxna doorato in arinta ayada gacan lagu siiyo ra'iisul wasaaraha oo la garab istaago waxaan maqlaynaa bariyahan dad u istaagay leh xal baan rabnaa iyo dad baan isku soo xeerinaynaa hawshu ha socoto doorashadu hawlna sideedaba laba shukaan ma laha baabuurku sidoo hal
isteerso u leeyahay laba isteerso waa la soo qabsanaya marka xilgaarsiinta ra'iisul wasaaraha ayaa hawsha amniga iyo doorashada mas'uulka ah in loo fududeeyo loona daayo inta uu hawsha ayada maadaama uusan asagoo musharax ahayn oo cadeeyay inuusan musharax ahayn oo tuhum uusan ku jirin meesha ayada ah in wax laga raadiyo ma mudna wuxuu mudan yahay in la garab istaago arinta ayada ah in la garab istaago ayaan soo jeedinaynaa waxaan rabaa inaan ka dardaarmo oo ka soo jeediyo barnaamijka waxa golahani ku dhawaaqay doorashadiisii horeba inuu qoriga xabadda ka saaray waxa ay soo gaaraysaa in dhalinyaro cusub oo aan waxa dagaal yahay aqoon u lahayn in ay qorigii dib xabadda ku ceshteen oo waliba ammaankii furteen marka waxaan leeyahay ammaanka xirta qorigana xabadda ka saara taariikhdii 30 sano iyo ka badan wixii la soo maray dib u akhriya haddiidna soo gaarinna waa yeelada idinka waaweyn waraysta nabad wax lagu waayo dagaal laguma helo waan ka digaynaa in dagaal cidi wax ku raadiso ayadoo nabad la aadi karo barakicin bulshada muqdisho uma baahna iyo Soomaaliya dhammaan waxay u baahan tahay in la badbaadiyo horumarkooda laga shaqeeyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa billahi tawfiiq.